waxaan soo dhaweynayaa isla xubin guddidaasi ka mid ah waa Dr. Axmed Aadan oo buuxane ku magac dheer Dr. buuxane ayaan isna siin doonaa insha Allah waxoogaa tafaasiil bal ilaa iyo hadda hawshoodu halkay daaranta iyo sida ay u shaqeynayaan insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada maayirka iyo golaha deegaanka maama adna iyo ganacsatada xooga badan ee dalka ka shaqeysa iyo bulshaweynta kale naga soo qayb gashay aad baan idin salaamayaa idinku celinayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. walaalayaal anoo ah afhayeenka guddiga culummada iyo ganacsatada waaweyn ee dalka waxaan rabaa inaan idin sheego ama idin yar falanqeeyo bal waqtigii aanu soo marnay si wax u dhaceen iyo guddiga sida loo sameeyay iyo wixii natiijo ka soo baxay anoo ku degdegaya culimaadudiinka iyo aqoon-yahanku iyo gaar ahaan nimanka la yidhaahdo tujaartu dareenka maalintaa dhacay 29kii bisha Shaabcaan ku beegnayd 1da bisha afraad markiiba kulamay qabteen degdega masiibadii cuslayd ee dhacday qaarkoodna wax badan ay ku lahaayeen waliba bunuugta waaweyn ee xoogga leh sida Dahabshiil iyo Daarasalaam ay u badnaayeen deymaha badan ee ganacsiga ahaa ee ku dhex jiray halkaa haddana ma aanay fadhiisan shirradooda ay qabteen anaga kulankana loogu yeedhay runtii waxaa mucjiso ahaa markaa aan soo galayba waxaan arkay odaygii weynaa ee Dahabshiil oo fadhiya oo Cabdirashiidna dhinaca ka soo fadhiyo Telesom Cabdinaasir Aadan soo fadhiyo Cabdikariim Maxamed soo fadhiyo Cabdirashiid yacni milkiilayaashu ugu xooga badnaa dalka Omar wakiil soo fadhiyaan sharaa'igii waaweyn soo fadhiyaan markaa nabadna baa leeyahay waxaan doonaynaa inaan gurmano waxna qabanno dabadeedna guddi bay meeshii ka kawaneen guddigii baa la dhisay yacni cid ka maqnaday way yarayd guddi waxaa la dhisay 21 xubnood ka kooban dabadeedna waxaa la yidhi qaabkee baynu hantida u guri karnaa aynu gurmadka dadka walaal dhibaatoobay aynu wax ugu sameyn karnaa dabadeedna waxaanu bilownay markaa qorsheyntii kulamo isdaba jooga caawa maanta bishu waa 8 caawa 9 8 cisho waxay ahayd maalintii saddexaad baanu kulanka bilownay maalintii labaad waa la bilaabay laakiin dhismaha maalintii saddexaad baa la sameeyey ilaa maanta oo 5 cisho ka soo wareegtay subax galab iyo habeen guddigaasi way fadhiyeen waxayna qorsheynayeen wixii la yeeli lahaa waadii sharaxi doonaa qaabka loo sameeyey qorshayaasheeda faraha badan lee fadhiyay waxaa ka soo baxay in guddigii markii la dhisay la qoray faces aanu kala sameynay kuwaas oo kala ah faceka koowaad oo caawa aan ku tala galnay oo lacag 8 milyan oo dollar ah ilaahay idankii aan rajeynayno inay noo soo xirooto faceka labaad faceka saddexaad waxa weeye qaybtii dumarka iyo haweenka qaybtii dhalinyarada qaybtii waxa soo hadhay dalalka dibadda iyo shaqaalihii dawladda shaqaalaha baraafitka golayaasha qaranka golayaasha deegaanka iyo dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa loo dhaadhici doonaa si hantida meesha ka baxday bal waxaynu awoodi karayno aynu soo gelinno qaybaha cabiradu way kala duwan yihiin tan caawo waa tan degdega ah ee shakhsiga ama shirkadda la kicinayo ay ka jawaabayaan wixii aanu u qoondaynay inay noo jawaabaan intii ka dambaysana waxaan gali doonaa qaybaha aan soo sheegnay faraha badan leh sida oo kale guddigu waxa ay la xiriidhay gobolada ama wadamada dibadda ka ah Soomaaliland bay la xiriidhay sida wadamada Mareykanka oo gobolka Minnesota Soomaalidu fara badan tahay ay kulamo degdega wadaan laga yaabaa caawada aan joogno mid baa dhici doona
axaddana mid baa dhici doona sida oo kale ingiriiska shirar degdeg ah ayaa ka socda isagana sidoo kale South Africa wuu ka socdaa sidoo kale Kenya xiriir baan la sameynay maalinta axadda ayay kulanka leeyihiin waxaan kaloo xiriir la sameynay magaalada Muqdisho cidii joogtay oo iyaguna waxa ku dhawaaqay 2 milyan laakiin dib bay iskugu noqdeen oo waxay yiraahdeen waa inaan ka badinaa waxay lagu dari doona garan mayno Puntland guddi bay samaysteen way la soo xiriireen way wadaan hawshoodii Djibouti waxna way soo direen xagga xukuumad ahaan ganacsiguna wuxuu ballan qaaday inaan ka daba tagno oo xagga ugu tagno dawlad deegaanka Soomaaliyeed jigjiga shirkoodii ugu horeeyay way qabteen waana kuwii shalay toole salaadiintu ay hadashay ay yiraahdeen degdeg ha loo kaalmeeyo wadamada Carabta iyo wadamada Yurub qaarkood waan arkaynaa qoraalada ay qorayaan iyo fadhiyadooda sawirradooda soo direen laakiin xiriir toos ah lama intaan la xiriirna waa intan weeyaan annaga qaabkayagu wuxuu u shaqayn doonaa aan doonaynaa account-yaan sameynay account-kaasi in yar baan ku kala duwanahay ka dawladda waayo dawladdu waxay qaabilaysaa hay'adaha dawliga ah iyo waxay qaabilaysaa dawladaha caalamka cidii wax taraysa dalkeena ilaahay idinka wana badnaan doonaan intaas iyadu qaabilaysa anagu waxaan qaabilaynaa ganacsatada iyo shacbi weynaha Soomaaliyeed isirka Soomaaliyeed meel uu joogaba ayaanu qaabilaynaa maadaama ummadeennii xogaa waxbarasho fiicanna way jirtaa maanta xogaa culaysna uu iska jiraa sidiisaba oo ah shaki iyo dunuun baa soo baxday si loo kala bogsado ilaahay idinkii ilaahum baa bogsiin kara laakiin waxaanu qorsheynay wax ayagu wax digital ah inay ku baxaan website la yiraahdo kaalmada iyo gargaarka suuqa waaheen ayaanu sameynay haddaba aan la fadhino uu shaqeynaya oo inamadii ka shaqeynaya wayna joogaan in marka wax alla wixii ku soo dhacay shilin ah markay daatahan noogu soo dhacdo annaga inay ka cadaato marka isla markaa bunuugta waaweyn sida dahabshiil oo kale salaamo oo kale amal oo kale ay ku soo dhacaan Premier Bank ku soo dhacay saa u soo dhacaanba daatadiyo culus waxa ka soo muuqan doontaa marka qofkii doonaya inuu galo website-kayga web page-kayga uu tagayaa wuu ka eegayaa wuu ka arkayaa dhammaan wixii ku qornaa wuu ka arkayaa markaaba saasaan go'aansanay sida oo kale saan idin sheegnay horeba annagu nafteedana waan ka xarinay inaanu wixii meesha soo galaya imanaya aanu taabanno maadaama ganacsatada lagu magacaabay iyo ay joogaan culimadiiba in mataqaana wixii soo baxay ka soo lagu baxaya shir han noqoto fadhi han noqoto isgaarsiinta iyo warfaafinta noqoto TV-yada qaran iyo kuwa kale noo iman doonaba han noqoto iyo wixii nagu baxa kharashaad ee stationery iyo wixii office lahaaba annaga jeebkayaga ayuu ka bixi doonaa jeebkayu ka bixi doonaa annagaana isxabsanayna laakiin xisaabta loogu talagalay dan yartaa marna ku jiri maayo haddii ilaahay yiraahdo gobolada dalka haddaan ku yarnoodo in yar ways abaabulan dhammaantoodba xiriir baan ka haynaa gobolka Awdal gobolka Togdheer Sool waan ka haynaa Sanaagna TV-dan ka aragnay waa dhiirigelinaa dhammaantoodbana shacbiga waxa laga soo guranaa waa hawl shacab waa dhiirigelinaynaa inay ismaamulaan oo iyaguna waxooda soo wara tagi doona haddii ilaahay yiraahdo qodobka muhiimkii wuxuu yahay marka anagu waxaan sameynay marka liis baan sameynay liiska lacag baan ku qornay qof walbaba macnaheedu shakhsiyaad way yar yihiin inta badan wax u badan yihiin sharaa'iga waaweyn buu badan yihiin oo isku tagay oo bulshadanu ay leedahay lacagtaas waxaan doonaynaa in loogu dhawaaqo aqlabiyadda shirkadahan halkan ka akhriyo doonana way dhawaaqeen wayna sheegeen waxa ay bixinayaan waxaan si aad iyo aad si gaar ugu sii mahadnaqayaa annagiyoonan dirsan oo la hadal ayaa waxaa soo booday ninka la yiraahdo shirkadda Faras waxa uu kala baxday 1 iyo 2 u kala baxday dabeedna qaybteeda koowaad annagoon laba hadlin bay ku soo shubeen lacag 50 kuna sida oo kaleento ina gaafane xamse uu la fadhiyaa annaga oo xalay oo kaliya telefoon u dirnay saaka wuu ku shubay isagu sharaa'iga waaweyn ay ka mid yihiin dahabshiil telesom maxamed Saciid Omar World Remit ina afdiinle iyo Trafigura intaas qodob
qolo waa sharaa'iga waaweyn midkiiba waxaan ku qorannay lacag nus milyan ah waxaan codsanayaa inkastoo noo sheegeen annaga laakiin waxaan codsanaynaa inay lacagtaasi oo 3 milyan bar dollar ah annagoo bartaa joogna hadda ay noo dhawaaqaan inamadii mikrofoonka awe waxaan codsanaynaa lagu kala kici maayo caawa waan ku faraxsanahay runtii inaan liiskan ku qoray ka qayb qaadano lacagtaana accountka berito ku shubno haddii la ka dhigo weliba shaqaalaha iyaga iyo wakiiladeedana waxaanu ku dhiirigelinaynaa oo aanu kala shaqeynaynaa iyaguna inay qaybtooda ka soo ururino oo aanu accountka ku shubno haddii la ka dhigo assalaamu calaykum haddaan Telesom group nahay anaguna waxaan bixinaynaa 500,000 shaqaalaha iyaguna waxay ku dhawaaqeen 100,000 inay bixiyaan iyaguna 600,000 weeyaan Telesom waxaan halka salaamayaa madaxda sharafta leh oo madaxweynuhu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada haddaan u dhaadhaco anigoo ku hadlaya afka MSG Group iyo mulkiilaha shirkadda Maxamed Saciid Geedi waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa 500,000 waxaanu dib ugu noqon doonaa shaqaalahayaga waxay ku contribute gareynayaan suuqa waaheen inaanu qaybteeda ka qaadano waad mahadsantihiin salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها مدحوين كحجانك وسيردا اللباندا دمان والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة أومار انترناشونال يدو كقيب قادنا الساعة دباتنا دعضي وهرمودنا كأ شركة هرمود كأ ودن كأ وحكي يبوه الساعة $500,000 $1 ونقد ديارة إلى حسابك كشبنا هذا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaye shirkadaha toddobada ah waxaa ku qoran midiiba 500,000 waana 3 milyan bar weeyaan inta kale degdeg baan u yeerinayaa inta kale waxaan qorshaysanay markaa cidna inaan laga tagin haddana ma wada gaari karna bulshada sidaanu qorshaynay waa phase 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 taasoo socon doontaa marka imika sharaa'iga dalkan galaynaa sharaa'igan galaynaa intaan la gelin horta cidda bixisay ee dhaqaalaynta lag bixisay ayaynu u ducaynaynaa بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وهبين مهمة وحفلات غالية مدحوينها مدحوين كحجينك قراء حكومة كان عسدك للدجن dhammaan marti sharafka kala duwan ka soo qayb gashay xafladan waxaan oranayaa marka hore u ducaysnaayeen hore u barakeysnaayeen maasha Allah maalkooga iyo hantidooda waa ka muuqatay waxay ducadu ku kooban tahay ilaahay ha u aqbalo amiin Allah ha u aqbalo amiin meeshay ka soo saareen wax ka khayr badan Allah ugu bedelo ha ahaadaan kuwii jira weligood intii adduunyada jirtay insha Allah ee walaalahood barbar taagan ee caawiya ee kaalmeeya cidda ka xanuunsanaysa alcaafimaad Allah u siiyo heeraha iyo xaasaska Allah u hagaajiyo ubadkii caruurta Allah u hagaajiyo dalka Allah inoogu hagaajiyo meesha ugu muhiimsan oo ugu qiimo badan oo jannatul firdawsa kuwii ku dhex mushaaxa ee ku dhex noolaada ilaahay uga dhigo allana ha u aqbalo doctorku waa mahadsan yahay waxaan ku yar degdegi markaa sheekhan ku soo celin doonaaye inaan liiska kale sidaa u akhriyo cid walba waxaan ku qoondaysanay waxaan ka bilaabayaa jaamacadaha dalka oo aad u fara badan wasiirkiina wuu inala joogaa markhaati buu ka yahay waxa weeyaan $200,000 shirkadda adco cali aadan baradho iyo cali waraabe iyaga $150 baa ku qoran $150,000 baa ku qoran daruuri shirkadaha bakhaarleyda $150,000 baa ku qoran SBI ina geelle waxaa ku qoran $100,000 baa ku qoran alxarbi waxaa ku qoran $100,000 sombaw waxaa ku qoran $100,000 al-ikhwa waxaa ku qoran $100,000 salma group waxaa ku qoran $100,000 AFG waxaa ku qoran $100,000 barwaaqa badbaado group waxaa ku qoran $100,000 safa group waxaa ku qoran $100,000 baxsane waxaa ku qoran $100,000 indhabirta waxaa ku qoran $100,000 cali nabadiid waxaa ku qoran $100,000 faraska oo isagu 1 iyo 2 kala noqday 1kii way bixiyeen 2ga sugaynaa $100,000 baa ku qoran konton waan ka haynaa diwa group shirkadaha dawada kaalmaha shidaalka
waxaa ku qoran 100,000 colaad isugu soo bixiyeyba oo imaaraadku joogay isugu soo dirayba 100,000 spare part companieska waxaan ku qornay 100,000 iskuulada gaarka loo leeyahay waxaan ku qornay 100,000 sida oo kale iskuulada publicana waxaan noogu qoran 50,000 waxaana mas-uuliyadda qaadi doonaa wasaaradda dhakhaatiirta ururka dhakhaatiirta 100,000 suuqa gobonnimo suuqa la mid ahaa 100,000 ururka warshadleyda 100,000 shirkadaha farniijarka 100,000 axmed cusmaan mindiq midhiq 100,000 shirkadaha qalabka dhismaha 100,000 sariflayaasha 100,000 waxaa ku qoran marka halka waa 2,900,000 halkaasina shirkadaha ay ka mid yihiin ina gaafane waxaan la jooga xamsana la jooga xamseere uu bixiyey lacagtii isagu 60,000 Red Sea Petroleum 50,000 Som Petroleum 50,000 Somar 50,000 Ambassador Hotel 50,000 Saadaddiin Furniture Saadaddiin waxaa ku qoran 50,000 Sagal Jet waxaa ku qoran 50,000 Dar es Salaam waxaa ku qoran 50,000 Tubsan iyo Motherland waxaa ku qoran 50,000 Amal Bank waxaa ku qoran 50,000 Premier Bank 50,000 xawaalada Tawakkal 50,000 Star Group 50,000 Daryeel Construction 50,000 Som Properties 50,000 Maxamed Ibraahim Dheere 50,000 isugu soo bixiyeyba uu soo diray maxamed ibraahim dheere uu soo diray shirkadaha socdaalka ee gobolada iyo degmooyinka dalka 50,000 iskaashatada tawfiiq ee gaadiidleyda 50,000 iskaashatada Tawakkal ee gaadiidleyda xamuulka 20,000 dahablayaasha iskaashatada dahablayaasha Jawhara 25,000 halka waxaa inoo dhammaanaya liiskii guud baa inoo dhammaanaya ee soo qornay waxaan marka imika la wadaag waxaa badan marka waxaa iskaashatooyinkii xooga badnaa ururada mihnadlayaasha sida oo kale shacbi weynaha aan gaari lahayn oo dhan uu noo dhiman yahay shirka haweenkuna wuxuu dhici doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh marka waxaan codsanaynaa cidda hadda joogta ee lacagta bixisay iyadna inay istaagto ay gacanta taagto si loogu duceeyo cidda kalena ay ballanqaadkii samayso si markaa idna loogu duceeyo ugu horreyn waan salaamayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan qaaliga maadaama xaaladda meesha ka jirta aanay ahayn mid waqti dheer qaadan karta waxaan go'aansaday in aan halkan ku bixiyo lacagtii qaadhaanka ahayd ee guddida nagu soo qortay oo dhan 60,000 adigoo matalaya shirkadda gaafani group maasha allah tabaaraka allah lacagtaa la nagu qoray waanu bixinaynaa haddii aan la yidhaahdo marka aanu ku noqono xafiisyadii aanu isla shirkadda aanu wada tashanno maasha allah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada golayaasha qaranka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka jawaabaynaa codsigaa lanagu soo qoray oo 150,000 inaanu qaadanay iskula noqonano keeninina kolley anaa ku socda shirkadda SBI Coca-Cola waxaan kolley wakiil maan nahay markaa kolley shila markaan isku noqono xafiiska aan ku noqdo lacagta la xukumay kolley insha Allah waan la wadaagi doonaa maamulka shirkadda ما شاء الله ما شاء الله الرحمن الرحيم waanu qaadanay lacagtaan ما شاء الله تبارك الله anoo ku hadlaya magaca shirkadda Sompower lacagta qaadhaanka ku soo qoray waanu bixinaynaa waxaan ku shubay doonaa akoonka guddida lacagta waanu aqbalay ayaguna lacag ayagu urinayaan iyaguna insha Allah taala soo shubi doonaan akoonka diraadi ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم كل ملكيلي شركته isagoo ku soo socda shirkad safarkiisa ku soo baxay laakiin lacagta waan isla qaadanaa dib baan usoo noqonaa insha Allah ما soo jawaabna كان lagu soo qoray waan bixinaynaa maamulka baan dib ugu noqonaynaa insha Allah billahi alkarim bismillah haddaan nahay safa group waanu qaadanay lacagta ما شاء الله dib baan isugu noqonaynaa insha Allah xafiiskaan dib ugu noqonaynaa insha Allah waanaanu soo diranaa haddii alla yidhaahdo anigoo matalaya ururka dawooyinka waanu aqbalay qoondada nagu soo qoray insha Allah waana bixinaynaa ما شاء الله marka hore ilaah baa mahadle marka labaadna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradiisa golaha wasiirada martishada meesha wada fadhida aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirka la isugu yimid wanaag insha Allah ku aslaaxiyo ما شاء الله sida aad soo xukunteen guddida kaalmaha haddaan nahay baroodi jeex
waanu qaadanay wixii aad nagu soonteen ما شاء الله تبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa waxaan ku rakinaynaa in sheekhu duco dhuuxooda gaadhay inuu duceeyo ilaah idinkii الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي سبحانه وتعالى ما هذله الله سبحانه وتعالى كلن كان قيمها بدن سو كان كاني الله إنه وافتشيه إن أكل النوع عاونتا وقرمتك يتاجرد ولا لهني dhibaatada aynu ku wada dhacday ku habsatay suuqa gubtay sidoo hore la inoogu sheegay xoolaha ilaahay baa leh qofka hayana ilaahay baa siiyey allihii siiyana wuxuu amray dadka maal u baahan kaalmo u baahan in maalka laga caawiyo waatuuhum min maali illaahi aladii aataakum buri ilaahay subxana wa tacaala maalka ilaahay ee ilaahay uu idin siiyey wax ka siiya rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis aada u layaab badan oo ay tahay dhegaheennu inay maqlaan buu ka yidhi maalka iyo nicmada ilaahay dadka qaarkood uu siiyey wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood buu ilaahay u nicmeeyaa oo maal iyo xoola uu siiyaa si ay dadka ugu anfacaan haddii maalkooda shaqadaasi ay ku qabtaan oo dadka ay ku anfacaan ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaasi uu u sugaa waa u kordhiyaa waanu u barakeeyaa hadday ku anfici waayaan oo shaqada ilaahay ugu talagalay xoolaha inay ku qabtaan ay ku qaban waayaan ilaahay nicmadaasi wuu ka wareejiyaa kuwo kale ayuu ku wareejiyaa inta maalkooda dadka ku anfacaysa inta hadda ku dhawaaqday inta ku dhawaaqi doonta inta gurmadkaa ka qaybgeli doonta meel kastoo ay joogaan waynu ducayna waxaan leenahay ilaahay nicmadaasi idin siiyey ilaahay idin sugo ilaahay nicmadaha idin sugo masaa'ibta iyo balaayooyinka ilaahay idinka ilaaliyo ilaahay kayd aakhiraha idinka dhigo ilaahay diinta dadnimada sharafta awlaadda dumarka iyo maalka intaba rabbi subxaana wa tacaala ha idinku ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala sida nebigiisu inoo sheegay sanaa'icu lmacruuf taqi masaarica suuq ixsaanka iyo samafalka qofku uu sameeyo ilaahay wuxuu kaga ilaaliyaa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka mid masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ilaahay idinkaga ilaaliyo ilaahay ha idinka dhigo ilaahay ha idin barakeeyo nebiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ballanqaad aynu haysanno wamaa naqasat sadaqatu min maal sadaqadu maalka waxba kama dhinto waaqicana waynu ku aragnaa oo dadka had iyo jeeraale infaaqa badan xoolahooda bixiya sadaqadaysta ku samafala dadka ku anfaca waynu aragnayoo xoolahoodu marba mara ka dambaysa way sii kordhaano way siyaadaan ilaahay ha idiin siyaadiyo rabbi subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa hawshaasi aynu kacnay inuu nagu guuleeyo dhammaanteenba quluubteenna in ilaahay uu ka dhigo mid midaysan ilaahayna subxaana wa tacaala tusaale fiican baa tiine arrin walba tusaale fiican ha idinka dhigo intiina ku dhawaaqday maalka hoosna waa loo bixin karaa si muuqatana waa loo bixin karaa laakiin qofka si muuqata u bixiya iyadoo niyadiisu ay wanaagsan tahay oo ujeeddadu ay tahay inuu ilaahay daraaddii u bixiyo dadkana tusaale uu ugu noqdo ajar dheeraada buu helaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maruu ku baaqay in la sadaqad la bixiyo ninbaa wuxuu keenay xoolo culus oo dirqi uu ku sido rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa intuu farta ku fiiqay buu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha qofka waddo fiican dadka u jeexa tusaale fiican u noqda ajarkii wanaaggaasuu leeyahay cid kastoo kaga dayatayna ajarkii ka heleen mid leeg buu ka helay iyadoo waxbaan laga nuqsaamin ahayn marka wixii aad ku dhawaaqdaan dad badan bay dhiiri gelinaysa oo idinkaga dayanaya kuwaana ajarkay ka helaan waxay bixiyeen iyadoo waxba laga dhimin idinkuna maadaama tusaale fiican aad u noqoteen waxbaad ku helaysaan ilaahay tusaale fiican haynaga dhigo dhammaanteenba rabbina subxaana wa tacaala ducada haynoo aqbalo haynoo sugo ilahay baynu ka baryaynaa raxamaadkiisa iyo barakooyinka samada iyo dhulkaba inuu inoo furo sala allahu calaa nabiyina moxamed waxaynu ka wadaynaa meesha colaad wuu bixiyey boqolkiisi kun spare part companieski shirkadihii spare partska iskuullada gaarka loo leeyahay iyo iskuullada dowladda waxaa ku qoran 150 kun iskuullada gaarka loo leeyahay daladii way joogtaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka ganacsatada iyo dhammaanba marti sharafka ka soo qayb gashay
kulanka qiimaha badan leh waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii si gaar ay noo taabatay musiibada ku habtay qarankeenna ee ka dhacday suuqa waaheen waxa ay guddida nagu soo qortay lacagtaana insha allah waxaanu kula noqon doonaa iskuulladeenna iyagoo bareefiyad bulga isku mid u yihiin runtii oon la kala saarayn haddana insha allah intaa la nagu qoray insha allah waan qaadanay waxaanu kula noqonnaa iskuullada insha allah waxaad noogu soo ducaysay ilaa inoo dhabeerayo waayo annaga maaha shirkad meel taalloo dee lacagta laga soo qaadaye waa iskuulladana insha allah dee waxa weeyaan waqti bay qaadan doontaa insha allah waanan isku noqon doonaa waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا متشرفتا قولها دحه حكومة دولة هوسه iyo martisharafta sidoo kale culimada waa salaamaya haddana ururka dhakhaatiirta waxa guddida nagu xukuntay waanu qaadanay insha Allah waanu ka soo tirtirnaa waanu soo gudbin doonaa insha Allah ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدحوينه ku-xigeenka maayarka caasimadda iyo golaha deegaanka martisharafta kale ee ganacsatada ay halkan isugu timid dhammaantiinba marka ugu horeysa waa salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lacagtaan lagu soo qoray ee qaadhaan ururinta musiibadii ka dhacday suuqa waaheen waanu qaadanay haddii la yidhaahdo waanu islan iskugu noqonnaa maasha allah si degdegana insha allah hawshaa waanu gelinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaanu nahay ururka warshadleyda waanu qaadanay waana soo bixinaynaa insha allahu tacaala inkastoo guddoomiyihii iyo xubnihii kale aanay malaha shirka joogin laakiin insha allah guddoomiyihii wuxuu ku maqan yahay baa la yidhi cimradii xaramku ku maqan yahay marka waanu qaadanay sheekh maasha allah qadarka lacageed ee nagu qoray $100,000 siday tahay baanu u qaadanay sida ugu dhaqsaha badanna waxaan ugu soo shubi doonaa akoontka guddida haddii ilaahay qadaro waxaan ilaahay ka baryaynaa in gacanta ilaahay baa lagu dhargaaye oo arrimaha aynu ku jiro ee khayrga ay noo fududeeyo biidnillaahi kariim sida ugu dhaqsaha badanna inuugu asturo ummadda dhibaatada ay gaadhayna waxaynu ilaahay ugu baryaynaa faraj khayr qaba gacanta ilaahay baa lagu dhargaa waxaynu ilaahay u weydiinaynaa bedel khayr qaba oo degdeg ah biidnillaahi kariim wixii ay hayeen iyo wax ka badan bayna ahay inuu maaragtay soo geliyo shacbi weynaha somaliland guud ahaan ganacsatada halkan fadhida iyo dowladda maaragtay iyo maamulka guud ahaan golayaasha qaranka ee iyaguna halkan fadhiya isku xilqaamay iyo weliba guddida labada ah maaragtay isu daba joogta hawshan inay wax ka qabato iyagana waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay ha idinku daro dhammaanteen waa salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddigu lacagta ay nagu xukuntay urur ahaan waanu qaadanay waananu bixin doonaa ururkana waanu bandhigayaa sida ugu dhaqsaha badan waanu bixina insha allah haddii ilaahay yidhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada waan salaamayaa annagu horaanu isu xukunno khamiistii waanu shirno shirkan maanaan ogeyn maasha allah marka gaar bay isugu yimaadeen shirkoodana xafiiskayga ay ku yeesheen 100,000 bay isku xukumeen marka halkan umaan iman inaan maanta kaga dhawaaqan laakiin dee kul haddii ganacsigoo dhan la yeedhiyey anigaa madaxo oo shirkaygii wixii ka soo baxay u ahaa 100,000 sidaasaa insha allah tirada ugu darasaan iyagana 9 diyaaradood oo jamhuuriyadda somaliland ka howlgala $100,000 fiiska koowaad kaga qayb qaadanaya aad iyo aad bay u mahadsan iyagana ilaahay subxaana watacaala halkay ka soo saareen miisaan xasanaad leh ugu bedelo asalaamu calaykum maasha allah bismi illaahi raxmaani raxiim madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka intiina kalena waxaan u salaamayaa adna aadan ismaaciil dhammaantiin baa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib qaadhaankan na lagu soo qoray shirkadda Som Petroleum halkan lagaga dhawaaqay idanka ilaahay waanu soo bixinaynaa waana isu tegaynaa ka maamul ahaan hawshaasna idanka ilaahay waxaanu jecel lahay annaga iyo qayrkaba inaanu ku degdegno waayo waxaanu ka shaqaynaynaaba waaba daba annaga laftiga iyagoo shirkadaha shidaalka iyo kuwa batroolka iyo kuwa electriga iyo waxaan isleeyahay wixii lagu qoray inay hore usii bixiyaanba weeye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ku hadlaya magaca reer c mar labaad waxaan salaamayaa golayaasha qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka waxaan si gaara isna u salaamayaa maalinka caasimadda oo hawshaasi maaragtay si mug looga qayb qaatay iyo guddiyadii hawshaa gacanta ku hayay intaba lacagtaa la nagu soo qoray ee 50,000 waxaanu u qaadanay sida ay tahay sida ugu dhaqsaha badanna waxaanu ugu shubi doonaa akoontka guddida haddii ilaahay qadaro aadna waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ka hadlaya magaca malbaan lacagta ay nagu soo qoreen guddiga gurmadka suuqa waaheen waanu qaadanay ka maamul ahaana waanu isku noqonanaa aad iyo aad u mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada
maayirkii maayir ku-xigeenka culimada iyo ganacsatada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaanu nahay star group lacagtana lagu qoray waanu qaadanay waanu bixinaynaa insha allahu tacaala tii tanu lagula hadhi lahaa maahee insha allahu tacaala inta kalena dee way bixin doontaa ilaahayna haynoo fudeeyo idinkana ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم way ka soo gaari waayeen oo magaalada ka maqnaayeen waan u aqbalay daryeel iyo khadar ambassadorba labada baana ka khadar oo aqbashay ma sha Allah hadaan nahay ururka dahablayaasha iskaashatada jawhara lacagtana lagu qoray waanu qaadanay sida dhaqsaha ugu dhaqsaha badan oo soo bixinaa insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله ليسكي halkaasuu inoogu dhamaaday waxay noo hadhay in loo duceeyo ducada ana qaadanaya dambigooda Allah dhaafo dhammaan cidii hanti maanta inoogu yaboodo iyo cidda kaleba dambigooda Allah dhaafo intoodii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag iyo baraka iyo khayr Allah siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha ka soo saareen iyo meel ka fiican Allah subhanahu u geliyo waxay soo saareen wax ka badanna Allah u geliyo maalintooda aakhiriin maalintooda adduunyada Allah u barakeeyo nimayahow haddaba gebagabadii annaga xagga iyagii guddigii waan soo gebagabaynaynaa inkastoo oo reer galbeed ahoo gabayga layga fiican yahay haddana tanoo kale markay joogto waa tii uu yidhi bowlada markii aan ka jabay iyo boqonka taaggiisa raggii buurta igala baxay beerka ka ogsooni marka runtii baaraka allahu fiikum aad baan ugu faraxsanahay inaad timaadeen inaan juhdigaa samaynay ilaahay idinkii annagana waxaad naga sugi doontaan warqad transparency oo cad oo waxaad soo dirteen iyo meeshay galeen oo dhan oo caddaynaan samayn doona biidni illahi alkariim allah inagu asturo waadna mahadsantihiin wakhtigaa maanta la joogo waxaan uga baxayaa qaybtii dowladda iyo mudanayaasha kale inala joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi